wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada falanqayntii wararka qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona jadwalkii doorashada Soomaaliya oo uu dibadhac ku yimi yaa u sababa dibadhacaasi ra'iisul Soomaaliya oo talaabooyin xooggan qaadayo oo cidda ku lug leh inay dib u dhacdo doorashada Soomaaliya maamul goboleedyada qaar oo bilaabay inay bilaabaan musharaxiinta aqalka sare ee senatarada maamul goboleedyada qodobada kale aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona khilaaf xooggan wali ayaa ka taagan cidda gudoomiyaha u noqonaysa guddiga Waqooyiga ee heer federaal ee Somaliland Cabdi Xaashi iyo waliba Mahdi Guuleed oo qoorta wali iskula jira qodobada kale aan ku soo qaadan doona waxa hore ee gobolkaasi Gado oo eedeymo xooggan u jeediyay madaxweyne Farmaajo iyo waliba taliyo xubeenkii hore ee NISA muxuu maanta hadal xooggan ayuu maanta halkaasi ka jeediyay isagoo booqday gobolkaasi Gado qodobada kale aan ku soo qaadan doona waxaa ka mid noqon doona dawladda dalka Djibouti oo gabi ahaanba goysay waddo isku xidha Djibouti iyo Ethiopia dagaal xooggan oo halkaasi wali ka xalqaya Djibouti oo ka fiirsanaysa in dagaaladaas ayna ku soo fidin qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan falanqaynta wararka haddii aan nagu cusub tahay waxaan kuleenahay nagu soo biir hadda hore nagu jirtana waad ku mahadsan tahay aan ku bilaabanay waxaa dib u dhac xooggan uu ku yimid jadwalkii doorashada Soomaaliya oo lagu waday in maantaba uu bilowdo oo 25 bishu ay tahay waxaa dib u dhac xooggan uu ku yimid jadwalkii doorashada Soomaaliya iyada oo la filayay in ay bilaabato aqalka sare ama soo xuristiisa maanta la soo sheegaya in ay maamul goboleedyadu haddaba ay wadaan qabanqaabadii ugu dambeysay oo ay ku bilaabayaan in ay qabtaan aqalka sare maamulka Jubbaland oo ugu horeeyay oo sheegay inay ka gaarsiin doonaan ayaa waxa uu bilowday liiskii ayaa xalay loo gudbiyay musharaxiinta iyadoo madaxweynaha Jubbaland haddaba uu gacanta ku hayo oo u gudbin doono heer federaal oo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Ciro oo ku sugan Jubbaland halkaas oo kula wadaagay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ciro oo waraysi siiyay TV-ga Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay qabanqaabinayaan jadwalka doorashada oo ay ka carayaan sidii ay u dhici lahayn waxa uu sheegay inay wadaan in doorashada Soomaaliya xilligeeda ay ku dhacdo oo hadday u badato inaysan maalmo yar ay dhaafto sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Maxamed Xasan Ciro waxaa la soo sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu wado in maamul goboleedyada uu khadka telefoonka kula xidhay isagoo oo la soo sheegayo in uu wado in ay doorashada ka gaarsiiyaan cid kasta oo doorashada caqabad ku ah waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay talaabo ka qaadi doonaan sida uu sheegay waxa la soo sheegayaa in maamulka Galmudug oo sheegay in dagaal ay ku jiraan in madaxweynaha maamulkaasi Galmudug maalmaha soo socda uu imaan doono magaalada Dhuusamareeb isagoo hadda ku sugan gobolkaasi Mudug ayaa la soo sheegayaa inuu hadda ku sugan yahay ama maalmaha soo socda uu soo gaari doono magaalada Dhuusamareeb qabanqaabadiisana halkaasi ay ka socoto haddii ay noqdo dhanka Hirshabeellana waxaa wali Hirshabeelle haddii aynu eegnana waxaa qabsi xooggan wali ka socda maamulka Hirshabeelle guddiga doorashooyinka oo khilaaf weyn u dhaxeeyo iyadoo la soo sheegay in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe uu wado sidii uu u magacaabi lahaa senatarada aqalka sare gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Gado Maxamed Cismaan Nuur Xaaji Macalibow oo maanta gaaray gobolkaasi Gado ayaa eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliye ku-xigeenkii hore ee NISA ee xilka laga qaaday Cabdullaahi Kulane waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay 7 biloodna uu maxbuus ku yahay magaalada Muqdisho sida uu sheegay eedeymo culus ayuu u jeediyay waxa uuna sheegay in uu madaxweyne Farmaajo iyo waliba Cabdullaahi Kulane ay mas'uuliyadda lahaayeen inay 7 bilood halkaas ku xayirnaado waan soo sheegay gobolka Gadana waxaan soo taray wax badan waxa uuna sheegay in uu ka xun yahay sida loola dhaqmay waxa uu sheegay in seediintiisa uu lug weyn ku lahaa madaxweynaha Jubbaland oo uu sheegay inuu 10 sano dambe oo kursiga ku sahayn doonaan sida uu sheegay Macalimow oo warbaahinta kula hadlay magaalada Luuq ee gobolkaasi Gado halka aan ka soo baxay hadda inaan ka soo baxay Axmedoobe qayb uu ka leeyahay sababtoo shanta dowlad goboleedka waxay amar ku bixiyeen gobolada loo fasaxnaa oo qayb dad ka mid ah la xirxiray haddii markii ninkii aan la shaqaynayno dawladdu u maleynayay inuu la xiray ninkii aan la dirayno Axmedoobe way aan islahaynay oo gobolkan dib u dhigaan islahaynay oo laga soo fakiyay Axmed Islaan soo lama dhigi kara Axmedoobe maslina waa nin dowlad goboleedka Jubbaland xukuma annagoo la dirirna liiraa korkanaga lagu ansixiyay annagana waxaan ansixin doonaa 10 sano dambe hadii la raali ka noqdo haddii aynu eegno dhanka Ethiopia dawladda dalkaasi Djibouti ayaa waxay dhammaanba xadka ay la wadaagto gobolka Canfarta ee dalka Ethiopia ay gabi ahaanba xidhay iyada oo sheegtay inay ka cararayso dagaalada halkaasi ka holcaya dawladda dalka Djibouti ayaa la soo sheegay in wadadaas ay ku jartay carrooyin iyo waliba ka tarabilo iyada oo sheegtay inay ka cararayso in dagaalo xoog halkaas ka socda inay ku soo fidaan
saaka ayaa ciidamadii ugu badnaa xadkaasi la geeyey iyada oo dowladda dalkaasi Djibouti uga golle inaysan ku fidin dagaalada halkaasi ka holcaya ee u dhexeeya jamhadda TPLF iyo dowladda dalkaasi Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu bilowday howlgalkii ugu magac daray shaqeynta sharciga iyadoo TPLF-na ay dagaal xooggan kula jirto guud ahaan falaqayntii wararka oo aad kala socoteen channelka YouTube-kana kulanaya Abshir Joker iyo weliba page-kana waa intaas nabadgelyo.